magacayga cibaad xuseen had baa la yiraahdaa runtii waa maalin taariikhda galaysa waxay u galaysaa waxa weeyaan waa wax adduunka ku cusub sababtoo waxa weeye gumaysi wuu jiraa adduunka waa la isgumaystaa gumaysi wuuna gumaysanayay dhulkayaga iyo dalkayaga dadkayaga uu qaatay laakiin gumaysi laba gumaysi oo intuu adiga gumaysiga ugu weynaa kugu sameeyay oo dalkaaga iyo dadkaagiiba qaatay haddana sidan kugu galaya meeshii aad ku dhalatay runtii waa wax adduunka ku cusub waa waxaan hore loo arag wixii hadda uu sheegay xaaji dirane waa run waxa weeyaan naasigiiba ugu dambeeyay wax sidan oo kale ah oo waliba aan wax sidan oo kale aan ayna ahaynba marka loo fiiriyo wax yar bayba noqon taas adduunku la yaabanaa waxaan leeyahay meeshan la leeyahay waa jeelowgaadeen horta waa jeel musiibo jeelowgaadeen ma aha jeel musiibo weeye sababtoo waxa weeyaan musiibada adduunka ugu weynayd ayaa ka dhacday mar hadduu musiibada intaa la ka dhacdan horta waaba jeel musiibo jeel hadda ogaadeen ma bahaba talabaad waxaan leeyahay oon marka ugu horeysaba aan tacsi u dirayaa dadkii ku dhammaaday halkan ee xabaalahoodu meelahan aynu taagtaagannahay ay ku jiraan ee godadka iyo musqulaha ay ku jiraan ilaahayna jannatul firdaws alaclaa baan uga baryanaa waanan u tacsiyadaynaynaa dadkoodii ay ka dhinteen iyo ehelkoodii iyo inagoo dhanba runtii waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto kuwa halkaa ka ooyaya ee haweenka leh ee gabdhaha leh ee dumarka ah ee ka ooyaya halkaa ee dhibaatada lagu sameeyey ee sharaftoodii iyo cirdaygoodii iyo naftoodiiba la israaciyey waxaan leenahay waa wax la soo maray waa wax taariikhda galay ilaahay waxaan ka baryanaa gabdhaha ubuucda ka wada baabay in ilaahay uu maaragtay uu u boogadhayo waxaan leeyahay tan mid layloobaya maaha gumaysigeeni yana gumaystay baa dhibaatadan keenay kii sameeyay iyo kii uu adeegsaday intuba qof waliba uu ogyahay dambiga uu geystay innagu kaynu la dagaalamaynaa waa gumaysigii weynaa isagaana waxaan keenay ilaa iyo kuwa dhaqaalaha bixiya ee lacagaha bixiya ee tababarada bixiya ee xoolaha bixiya ee wax walba bixiya giddi way ku wada jiraan ma aha wax la iskaga hadhayo runtii maaha wax la iskaga hadhayo qiyaamana way jiraa xisaabtu way jirtaa adduunkana waa la baadhi waxaan waa la ogaan xabaalaha la soo faqi waa la ogaan oo dadkan maaragtay waxay yihiin iyo dhibaatadoodii iyo mushkiladooda adduunka inuu baadho weeye dowladda Itoobiya marna lagu cafi maayo tan waa mid u taala waa mid taariikhiya ilmaha maanta dhasha boqolka sano soo socda wuu xusuusnaanaya marka waxaan leeyahay hadalka ma sii badinayo laba xaaladood been maanta ku jiraa mid waa murugo oo dadkeenii meeshii lagu baabiin jiray baynu taagannahay maanta waa murugo wixii soo gaadhay laakiin waataynu ka halgamaynay waataanu dagaalamaynay waataanu soconay waataanu ordaynay waata intaas oo kun oo wiil dhuuxoodu dhulka ugu daatay iyo gabdho midna waxaa weeye waa farxado haddee maanta meeshii wixii oo dhammaaday oo maanta aan jirin yaynu dhex taagannahay waa farxad weeye ilaahay waxaan ka baryanaa inuuna ilaahay dib noogu soo celinin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatadanu ay gaadhay ummadda Soomaalida ogaadeen iyo gaar ahaan ee waxaanu ay gaadheen waxa weeyaan samir baan miciinsanaynaa isku duubnaanshaan miciinsanaynaa midna baan miciinsanaynaa dadaal baan miciinsanaynaa madaxa hoos uma rogayno kor baan madaxeena u qaadaynaa intan iyo inka badan waan iska kor qaadinaa waana iska kor qaadnay oo haddaba maaragtay way socotaa marka waxaan leeyahay hadalka ma badinayo waqtigu wuu dheeraaday dadkeenu ha samraan innaguna halkii aan walba ku taagnayn halgankii baynu u taagnaanaynaa halgankeennina weli wuu socdaa kanna wuu dhammaystirmi insha Allah sidaa maanta loo dhex taagan yahay oo cidlada u yahay cidlo u ahaan taariikh weeye la dumin mahayo sidaasay ahaan waa lagu xasuusan dadkeenna ilaahay qalbigooda ha isu soo jeediyo ummadeenna midnimadeeda ilaahay ha xoojiyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo isu tag iyo isu samir baynu wax walba kaga gudbi karnaa marka waxa weeyaan hawl weyn baa inoo taalle tani wixii inagu dhacay ba kamid tahay marka hawl weyn baa inoo taalla maaragtay oo xorriyadeennii iyo dalkeennii iyo hawlaheennii ah taas baynu ku dadaalaynaa tanna ilaahay ha inooga boogadhayo waxaan oran lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa dhibanayaasha bismillaah الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى بينه كحمدينا كشكرنا إلهي ما ركتي إنه قدري إنه هذا ما أنت أنشوفنه جالكي لقى سو شيكي وهذا وحبا مقعيسة هذا إنا شيكو وحبا لغا مباهنا وميل ما ركتي عقاب الدون مaba islahayn waligay ciqaabtan oo kala dhacaysa laakiin waa tii noogu horeysay xataa taariikhiga adduunka hadii intii aanu soo akhrisanay intii hadda diirana sheegayay waxba maanaan arag marka ilaahi maanta inagoo maaragtay muxuu ahaa
xor u ah inaanu aragno ilaahay inoo qadaray waan ku xamdinaynaa markaan waxaan leeyahay aaya min aayaatillaah يعني إله سيدن إنه معرفة إنه في ذي وإن لغو قرطه وإن إلهي سبحانه وتعالى دقيقة دون ساء بدل كرا وإن إلهي لو دواده وإن إلهي لغو قرطه ويتن تي هراء إنصار لافنين كل وكيل لغسو شيكي امتحان بيهاي الدون كان باء وأغنيه ضد مسلمين النهي الدون كامتحان باء إلهي إنه كان امتحان أيو الله إنه كان ولن آيات إلهي بمعرفة إنه قلت على ميل والب ولن نبلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مركا آياتك بديهين مركا inaynu ogaano dhibaato haday inagu timaado waa imtixaan khayr iyo barwaaqo hadaan helo waa imtixaan marka tanna waa laynagu fiirinayaa tii horena waynu soo aragnay marka yaana waxba sii badin dad badan ma joogeen midnimadeena iyo maaragtay inagoo diinta u dhawaana hadda gabdhahan maalin dhaweed la hadlay waxaan yiri soo hadda dhibaatadii iyo wixii badnaa inagama hadhin qof walba ilaa sidaad u baran lahayd diinta kitaabka quraanka ee wax walba inoogu yaalaan markii la barto in lagu dhaqmo weey quraanka waa la akhriyaa waa aad baa loo bartaa laakiin micnihiisa iyo fahamkiisa in lagu dadaalo ayaa fiican marka diinta ha la barto ilaahay ha loo dhawaado ilaahay ha lagu garto dhibaato haday timaadana waa wax inaga bini aadamka aan keenay khayr haduu yimaadana fa min allah ilaahay baa ina siiyay marka intaasan ku soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد محمد أحمد حسن زكريا. تماشن إن بدن بالا هذا الهيئ أون شيء كذا كم مقلين جال وقادين. رنهم وحلا مذا ما نأركن. وان أركي concentration كان بيدي ما أركت جرمك وسميه جرمك كويا لي كيب هولن كويا لي وان أركي. مركا وحويان marka waxa weeyaan wax ay kan oo waliba Afrika dhexdeeda ka dhaxdhacay oo dad Soomaaliya ma aragtay loo adeegsaday waxayna tusaysaa baaxada ma aragtay uu gumaysiga Itoobiya uu leeyahay iyo xumaanta ma aragtay dadka Soomaalida loo hayo iyo dhibaatada iyo gumaadka ma aragtay dadka Soomaalida lagu hayo marka wax ma aragtay la soo koobi karay ma waxaan maalin meeshan ku arkay marka waxa weeyaan والله waxaan ka oran karay ma jira ma aragtay wax weeyaan dadka Soomaalidu isku tishadaan waxaasay wax ka xumo kale ma aragtay kulay ma tahan wixii ka dambeeyay kulayna noo soo mari doonee laakiin wax weeyaan waa inaan ogaano taariikhda Soomaalida ay gasho waxaan ma aragtay concentration camp kana in la iloobo maahan inuu museum u noqdo weeyaan ummadda Soomaalida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ujeedada kormeerku waxay ahayd in loo kuurgalo oo macni la soo booqdo oo la arko jeelkan iyo dhibaatadii ka dhaxdhacday iyo ma garanaysaa si loo document gareeyo oo dadka maskaxdooda ay ugu document garowdo ama ugu diiwaan gasho markii ugu horeysay ma aha oo madaxda jabhadu ay jeelkan soo galaan waxa laga yaabaa physical inay hadda u soo galeen laakiin har iyo habeen jeelkan gudihiisa macnaheedu niyadda iyo qalbiga madaxdu uu ku jiray dhibkaas qaar badan oo ku xidhnaana way ku jiraan dhib kastoo ka dhaca iyo qof kastoo la keeno uu diiwaan gashay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeey diiwaan gelinka marka wuxuu ku qoran yahay diiwaanuu ku qoran yahay waxaana lala sugayaa xilligeeda lala sugayaa hadda maanta waxaan u soo galnay uu si physical ah baan u soo galnay mooyaan laakiin wuxuu ahaa wax ma garanaysaa horay looga warhayay dhibaatada ka dhacaysa horay looga warhayay buu ahaa marka waxaan rajaynayaa hadii ilaahay yiraahdo message-kii fariinta waxa madaxdii igu horeysay baa bixisay ujeedadu ma aha in la kaakiciyo dadka dareenkiisa in la kaakiciyo ma aha oo ay dhibaato ka dhalata ma aha ujeedadu waxa weeyaan in laga bogsoodo wixii horeyna gaadhay waxa hadda soo socdana laga gaashaanto ujeedadu ugu weyn taas weeyaan waxa dhibka kugu soo dhacayna inaad xusuusato oo aadan iloobin ma garanaysaa waxa soo socdana aad uga gaashaamato ujeedadu ugu weyn taas ay ahayd marka ma rajaynaya hadii ilaahay yiraahdo in arintani ay cadho hor la inagu dhaliso oo ay dareen hor la inagu dhaliso ma rajaynayo waxaan rajaynayaa in ay noqoto mid inoo fasaxda
oo maaragta inoo banaysa in aynu wixii dhacayna aynu diiwaan gelino magalaysa dhibaatooyinka soo socdaan ka gaashaaban aad baad mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Roose Cabdiraxmaan Xuseen waxaan dhex taaganahay maanta anoo ku hadlaya magaca ururka haweenka Soomaalida Ogaadeenaya jeel Ogaadeen baan dhex taaganahay waan dhex taagnaan jirnay markaan dibadda joognay sababtoo ah dadka iyaga waa nuu ordaynay inta waa nuu dagaalamaynay umaananu ku dhex jirin godkan yoomal qiyaamaha laakiin waxaan joognay banaanka waana nuu dacwoonaynay waana nuu ordaynay subxaanallahi waxa meesha ka dhacay ama waxyaalaan maanta soo aragnay kama hadli karay emotion baan noqday hadalkii baaba igu noqonaya laakiin waxaan u sheegayaa gabdho badan baan imika la kulmay intii aan wareegaynay gabdhahaas iyayna u malaynin inay keligood taagan yihiin dhibaatadii ku soo dhacday maalin iyo habeen garabkoodaanu taagnayn laakiin muuqooda maananu arkaynin maanta waxa iyaa nasiib wanaag inaan la kulmay gabdhihii magacyadoodii waxooda aan qaatay meel aan adduunka gaarsiinaba waanu gaarsiinayna abaalkoodana inaanu gudnaanu jecelnahay dhibaatadii soo gaadhay inkastoonanu ka maydhin qalbigooda wixii gaadhay laakiin haddana waxaanu la dadaalaynaa intii aanu ka maydhi karno dhibaatooyinkii loo geystay inaanu waxbal ka bedelno haddii ilaahay yiraahdo subxaanallahi waxa meesha ka dhacay yani ma soo koobi karayo iyo waxyaalahan arkay waa mid aan mucjiso weyn igu reebtay iyagana waxaan ilaahay uga baryay ilaahay qalbiga u qaboojiyo intii dhimatana ilaahay naxariista janno ka waraabiyo inta bugtana ilaahay uu caafiyo innagana aynu gamcaha isqabsanno midnimo iyo mitid iyo isku tashi buu hadafka jabhadu Soomaaliya aynu isku tashanno aynu midowno aynu gacanta isqabsanno haddaynu gacanta isqabsanno waxba inagama xumaanayaan oo aynu hal wada marno waynu raadin karayna wanaaga iyo wax wadada toosan laakiin haddaynu khilaaf iyo reehebel iyo reeja ma niraahno wax walba way naga xumaanayay waxaan idinka baryayaa walaalahay ragow siiba masiibatiino idinka dadka isku diraaye haweenkii way dhamaadeen ubadkii wuu dhamaaday aynu gamcaha isqabsanno aynu wadada hagaagsan qabsanno masiibadii ilaahay naga kaxeeyay aynu dad quman noqono aynu dalkeenan baabay ee dhibaatooday aynu u soo noqono dalkeena iyo dadkeena dhisno dadkii ay dhibaatada soo gaadhay ee maskaxdii ka dhimatayna saynu rehabilitation ku samayn lahayn aynu uga dhiqi lahayn dhibaatooyinkii soo gaadhay ee aynu ula sheekaysan lahayn uma baahna Soomaalidu waxay ku mahmaadaa seetay waxba kuma tartay qalbiga ugu roontahay gabadha dhibaatada soo gaadhay ama wiilkay soo gaadhay haddaad intaad u timaado aad la yara sheekaysato garabka ka taabato wax weyn bay u taraysaa gaaladu waxay tiraahdaa garab lagu tiirsadaa la yeeshaa marka waa inaynu garab u noqono dadkeena dibadaha ka imaaday aynu dadkii dhibaatadu gaadhay day and night aynu la fadhiisanno oo aynu qalbiga u dejinno aad iyo aad baan idiin salaamaya ilaahayna hayna wada cafiyo dhibaatada meesha ka dhacday gamcahana aynu isqabsanno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan ku suganaa jeel Ogaadeen meesha aad aragtaan waa jeel Ogaadeen waxaan ka mid ahaa erga uu hogaaminayo gudoomiyaha jabhadu ergadaas waxaan soo indhaynay sida jeelka gudihiisu yahay iyo sida ay xaaladdu tahay guud ahaan waxaan jeelkan wuxuu ahaa meelihii ugu badnaa ciqaabta adduunku ay ka dhici jirtay waxaan anagu ku xusuustaa jeelkan ciqaabta ka dhacday Ogaadeenaya inuu meelaha ugu badan ee dhibka iyo tacadiga ugu badan ee uu ka dhacay ay tahay waxaan anigu ka mid ahaa qaybihii maamulada jabhadda ee dibadda ka shaqayn jiray waxaan xasuustaa jeelkan tacadiyadii ka dhacay tacadiyada gobolka ka dhacay oo dhan inaanu sajalay ama aanu record garaynay arrintaas waxaanu u gudbinay maxkamadda adduunka annagoo isticmaalayna waaxda cadaaladda ee dalka Koonfur Afrika 2012 xilligaas waxaa noo suurta gashay in aanu Malla Zanaawi oo yimid 2 bilood kadib markii aanu samaynay arrintan in ay noo suurta gashay in aanu la socodsiino waaxda cadaaladda oo aanu ka codsanay in la soo xidho markaa kadibna ay yidhaaheen dhacdooyinka kuma filan laakiin waan soo xidhi doonaa warqadihii caddayntiisii ahayd waanu haynaa ninka la yidhaahdo Cabdiile iyo gruubkiisa iyaga laftoodu dadkaanu list garaynay bay ahaayeen marka waxyaabahaasi wixii aanu qabannay qayb ka mid ah ayaan maanta ku soo arkay meeshan iyada oo toosa marka ilaahay baan uga mahadnaqayaa nasriga dhacay